oo si xun ugu galgalatay Manchester United oo inta ay ugu tagtay istaadiyeeda Old Trafford ku garaacday 3-1 ciyaartii ka dhacday Old Trafford waxa ay ahayd mid dhinac kaliya ka socotay oo waxa mar kastaba ku gacan sareysay Liverpool oo sida ay doontaba ugu dheeldheelaysay Manchester United goolka hore waxa uu ahaa rigoore uu gool u bedelay Gerrard scores Manchester United 0 Liverpool 1 kan labaadna waxa isna uu ahaa rigoore kale oo gool ka dhigay Gerrard can he make it 2 he can rigoore saddexaad ayay heshay Liverpool hase yeeshee waxa gool u bedeli waayay oo gafay Gerrard aakhirkiina goolka saddexaad waxa Liverpool u dhaliyay Suarez Sturridge hits it deflects to Luis Suarez and Luis Suarez has put it into the back of the Manchester United net and it is now game over Liverpool waxa ay muujisay inay tahay koox u sharaxan qaadista horyaalnimada Manchester Unitedna waa koox u baahanba in dib u habeen buuxda lagu sameeyo oo salka hoose laga soo dhiso dadka dhexe waxa kaalintiisa ka soo bixi waayay Fellaini dhinaca weerarka Van Persie oo gool magafa ahaan jirayna hadda hooskiisa ka ciyaar fiican yaa guudna waxa ku dhex dhumay xidiga cusub Januzaj لاعبك كلية إلا يدقيقضيه وتنبيه دقالمينا ووين روني أو دور جير بلوني أو باسي فان بيرسي wuxuu isku dayay inuu gool dhaliyo waa orday waa xariftana oo dhinac walba waa taagnaa oo waa ciyaartooyga kaliya oo marka haatana uu isku haleyn karayo macallin Moyes oo qirayba inay aad u fog tahayba rajada uu ka qabo in kooxdiisaba kaalinta afaraad ee ku dhamaysato horyaalka I'm just going to try and keep winning the games. The teams above us are doing well. It looks as if we're a long way off it. taageerayaasha kooxaha kalena waxa ay leeyihiin Manchester United waa ubax abaarsaday Bahaya,